dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maalintii Isniintii 10 haween ay ugu horreeyay siiyay liisanka wadista gaadiidka. dalkan oo ah ka kaliya ee dunida ay haweenka xayiraadi ka saaran tahay wadista gaadiidka ayaa isku diyaarinaya inuu xayiraadaasi qaado 3 toddobaad ay nagu soo foolle. war ay dawladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in 10 haween ah ee liisanka la siiyay ay hore u haysteen liisamo ay ka soo qaateen dalal kale oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Lubnaan iyo Kanada. haweenka ayaa laga qaaday tijaabo ah sida loo wado gaariga iyo hubin dhanka aragga ka hor intii aan liisanka laga siinin waaxda gaadiidka ee ku taala caasimadda dalkaasi ee Riyaad, inkastoo warbaahinta caalamiga ah aanay hawshaasi goobjoog ka ahayn. haweenka kale ee ku nool dalkaasi ayaa iyaguna isu diyaarinaya inay helaan xaqa ay u leeyihiin inay gaari kaxeeyaan 24 bisha Juun, iyagoo xarumo u gaar ah haweenku ku qaadanaya casharo wadista gaadiidka. haweenka Sacuudiga ayaa muddo dheer ka cabanayay arrimo ay ka mid yihiin shaqaalaynta rag darawalla ah oo qiimo badan ku kacaya, isticmaalka gaadiidka tagaasida, iyo inay ku tiirsanaadaan rag ay qaraabo yihiin in ay goobaha shaqada geeyaan iyo weliba goobaha tukaamaysiga. tallaabadan la yaab kale ee haweenka liisanka lagu siinayo ayaa imanaysa xilli kuwa u dhaqdhaqaaqa inay haweenku liisamada helaan ay weli xidhan yihiin.